الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صحaabiga maanta aan akhrinayno qisadiisa waxaa la yidhaahdaa Thumaamatu bnu Uthaal. Thumaamatu bnu Uthaal waa reer bani xaniifa, qabiilkii Musaylamatu lkadaab iyo qabiilka la yidhaha Rabiica. yadribu alxisaara aliqtisaadiya calaa Quraysh, wuxuu ku soo rogay dhaqaalihii maaragtay Quraysh, cunaqabatayn qaabkuu u sameeyeyna dib bay nooga imaanaysaa. fi sanati asaadisati lilhijra, sanadii lixaad ee hijrada, cazama rasuulu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi wuxuu go'aansaday nebigu calaa an yuwasica inuu waasiciyo nitaaqa dacwatihi, dacwadiisa uu ugu yeerahayo ilallaahi ilaahay intishaarkeeda iyo faafideeda. nitaaqa kelmadda waxaa loo isticmaalaa geedka xarigan dumarku ay dharka dhexda ku xirtaan oo boqorka la yirahdana waa la yidhaahdaa. daatu nitaaqayn waa tii ay ahayd maartay Asmaa binti Abibakr. faafidan iyo waxaana waa loo isticmaala, macnooyin badan bay leedahay. kaas weye marka nebiga wuxuu rabay inuu dacwada faafiyo oo ilaahay dadka ugu yeerhayo ilahay dartii. fakataba wuxuu qoray 8 kutubin, 8 kitaab buu qoray, 8 warqadood buu diray ilaa muluuki alcarabi waalcajam, boqoradii carab iyo cajam buu u diray. wa bacatha bihaa wuuna u diray ilayhim xaggooda, yadcuuhum uu ugu yeerhayo fiiha ila alislaami buu ugu yeerhaya. warqadahaas dhexdeeda wuxuu u dirhayaa inuu nebigu ugu yeero dadka ilallaahi iyo ila alislaam. wa kaana fii jumlati man kaatabahum, wa kaana wuxuu ahaa fii jumlati man, dad gruubkii waxaa ka mid ahaa kaatabahum uu u qoray Thumaamatu bnu Uthaal ayaa ka mid ahaa, alxanafiyi reer bani xaniifa loo nisbeeyey. walaa garwa wax lala yaabo maaha. fathumaamatu thumaamo qaylun boqor weeye oo min aqyaali alcarabi, boqorada carab ka mida fi ljaahiliyati, wakhtigii jaahiliga. kelimadda qayl kelimada isticmaali jireen oo macnaheeduna waxaa weeye yidhaahdeen haddii qaala hadduu yidhaahdo, idaa qaala hadduu yidhaahdo, qowlan qowl hadduu yidhaahdo waa la fulinaya warkiisa. marka sidaasay waxay dhaheen waa qayl bay yidhaahdeen, laakiin qayl buu ahaayo boqor buu ahaa weye macnuhu. wa sayidun sayid weeye oo min saadaati bani xaniifa, sayidayaasha reer bani xaniifa ka mida, almarbuuqiina ee la egto. wa melikun boqorna weeye oo min muluuk lyamaama, yamaamo meesha la yidhaahdo boqoradeeda ka mida. aladiina kuwaasoo laa yucsaa aan la caasin lahum ayaga amrun amr looma caasiyo. yamaama najdi bay ka mid tahay, laakiin waa meel taariikhi aho in badan baad arkaysaa. xataa carabahan carab waayii hore la halaagayo, waayihii midnaa thamuud iyo caadi iyo ay jiri jireenoo hore, oo taarikh badan ba laga hayn. zarqaa ulyamaama iyo baa jiri jirtay. marka gabayada carabta iyo way ku badan tahay. waa dhinacan maaragtay najdi, hadda xataa mantiqa la yidhaahdaa riyaad iyo baxrayn iyo eryadaas wey. marka reer bani xaniifa hadda halkaasay deganaya. talaqaa wuu la kulmay thumaamo risaalata nabiyi, nebiga warqadiisa calayh isalaatu wasalaam, biziraayati xaqiraad iyo wal icraadi ka jeesasho. ilaa warqadihii nebigu diraya calayh isalaatu wasalaam, dadka qaarna waa ixtiraamayeen sida maaragtay heraqla iyo maqowqis iyo, qaarna ama dadkay dilhayeen keenay sidii kii reer khasaan, qaarna waa jeexjeexeen sidii boqorkii reer kisra. aduu kanina marka kuwa noocaas oo kaleeta uu ahaayo waaba maaragtay. wa akhadatu waxaana qaadatay thumaamaha alcizatu isla weyni oo bilithmi dembi xaalay tahay mid ku dheehan. fa asama wuu awday udunayhi labadiisa dhagood can samaaci dacwati alxaqi, dacwadii xaqa ahayd inuu maqlo, iyo walkhayra khayrka. uma intaas kadib inahu huwa asagu rakibahu waxaa koray thumaama shayطaanuhu shayطaankiisii
faaqrahu wuxuu ku baadiyey biqatli rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam nebigii uu rabaa inuu dilo saasaa shaydaan ka dhaadhiciyey iyo wa wa'di dacwatihi dacwadiisa inuu duugo macahu tan nebiga dilo dacwadiisana lala xabaalo fada'aba wuxuu caadaystay marka yataxayanu inuu waqti la suganayo alfurasa fursadaha lilqadaa'i si uga takhaluso cala nabiy sala allahu aleyh wasalam xataa asaaba intii uu ka haleelo minhu asaga xaggiisa khiratan dayacnaan hadduu meel ka dayacan yahay helo nebigu inuu dilo go-aankaasuu qaatay wakaadat waxayna u dhowaatay tatimu in ay taam noqoto aljariimatu jariimadaas yani iyo ashancaa ee xun oo dilka nebiga caleyh isalatu wasalaam lowlaa ana axada acmaami humaamata haddii aysan mid ka mida adeeryaashii humaama hanaahu uusan ka celin can casmihi go-aankiisa fii aakhiri laxdatin markii ugu dambeysay fanaja allaahu ilaahay waa uu badbaadiyey nebiyahu nebigiisa sala allahu aleyh wasalam min sharihi shartiisu ka badbaadiyey ninkaan nebiga inuu diluuba go-aansadee nin adeeryaashiis ka mid aha yidhu waxaan tala maahanin inuu ka joogo waa uu ka joogsaday laakina humaama idaa kaana qad kafa haddii uu iska daayay can rasuulillahi salawaatu ullahi calayhi nebiga hadduu iska dhaafay oo dilkaa iska daayay fainahu asagu lam yakufa iskama dhaafin can saxaabihi saxaabadii nebiga caleyh isalatu wasalaam xayثu meel oo jacala uu gudagalay yatarabasu inuu sughayo bihim ayaga xataa dafira markii uu ku guulaysto bicadadin tiro oo minhum ayaga ka mid a oo waqatalahum uu dilo shara qitlatin dil midka ugu shar badan nebigii waa bedelay go-aankiisii inuu nebiga dilo ahaa laakiin haddii uu asxaabtii nebiga wax ka arko wuxuu go-aansay inuu dilo waana arkay waa helay waana dilay faahdara nabiyu sala allahu aleyh wasalam faahdara nabiyu nebiga ayaa hadur ka dhigay caleyh isalaatu wasalaam damahu dhiiggiisa meeshii lagu arkaa lagu dilaalaya nin nebiga dilhayo oo saxaabadiisa laynhayo waclana wuuna iclaamiyey nebigu caleyh isalaatu wasalaam daalika arkaas fi asxaabihi asxaabtiisa ayaa lagu iclaamiyey ninkii waa mujrim xarbi ah marka hadda meeshii lagu arko inuu lagu dilo wey lam yabdi kama soo wareegin amase kama tegin calaa daalika arrinkaas tawiilu waqtin waqti dheer xataa intii cazama uu go-aansaday humaamatu bnu athal intuu ka go-aansaday calaa adaa'i alcumrata cumro inuu soo guto oo fandalaqa waa tegey min ardi alyamaamati buu ka soo tegey muwaliyan isagoo u jeedinhaya wajhahu wejigiisa shatra makata maka dhinaceeda wa huwa asaguna yumanii u rajaynayo nafsahu naftiisa biawaafi awaaf xowla lkacbati kacbada uu tawaafo iyo wadabxi inuu u bireeyo liasnaamihaa sanamyadeeda caadadii dhaqankoodii ahayd oo islaamka ka hor marka hadda la xajinayo ama la cumraysto hadyi baa la geeyaa meesha waa sunno nebigu geyn jira aleyh salatu wasalaam yaa loo biraynaya ilaahay subxaanahu watacaala inuu ajar ka siiyo dadka masaakiintaa la siinaya ayagu wax waa biraynhayaan laakiin sanamyadaasaa lagu waxaynaya wa baynamaa kaana humaamatu mar uu yahay fii bacdi ariiqihi jidkiisii uu ku sii socdo najdi buu ka yimid madiine agteeda la maraya qariiban meel u dhowo min almadiinati madiine ayaa nasalat waxaa ku degtay bihi asaga naazilatun musiibo oo lam taqac aan dhicin lahu asaga fii xusbaanin uusan kuba xisaabtamin balaahay uusan ku xisaabtamin baa kusoo dhacday ninkii daalika arrinkaasi waxaa weeye ana sariyatan sariyo oo min saraayaa rasuulillaahi salawaatullaahi calayhi sariyooyinka nebiga kamid sariyo waxaa la yidhahdaa waa ciidan koox ah oo 30 iyo ilaa dhowr boqol buu noqon karaa marka nebigu waa diri jiray calayhi sariyooyinkaas mar haddaan nebigu la soconna ghaswo lama yidhahda sariya la yidhahda kaanat waxay ahayd tajuusu mid wareegeysa khilaalo diyaari dhulka eryadaas dhulkeeda iyo daarahaas khoofan cabsi oo min an yatruqa inuu u soo galo almadiinata madiina taariqun mid maaragtay dheelmanahaya inuu usoo dheelmado ama u yimaado ama
ow amase yudiiruha u wareejiyo muctadin mid maaragtay gabadfalahaya bisharin shar mid cadaawad wata marka waa waxaan ay dhahaan maaragtay batroolka sooma booliiska ay sameeyaan oo kale caradii bay soo kormeerayaan waayahay fa asarat waa ay qafaalatay asariyatu sariyadii tumaamata ayay qafaalatay wahya sariyaduna iyaduna laa tacrifu aysan aqoon ma garanayso bakjare iyo dadka lagama hayo moogta ninka magaciisa waa la yaqaanaa oo nin caro dhan boqor ka ah laakiin raggan soo qabtay ma yaqaanaan sariyadaas waxay ahayd nin ciidanka ilaalada nebiga alayh isalatu wasalaam madax ka ahaan jiray oo la dhihi jiray maxamed bin maslama ayaa watay marka meel fogoo nejdaasaa loo diray qolyo marka nejdiga joogo oo reer bani bakar bin kacab la yidhaahdo oo qays caylaan ah ayaa dee nebiga dagaal kala dhexeeya alayh isalatu wasalaam oo hadba balaayo soo waxayn jiray kuwaasaa loo diray marka kuwii bay u tageen oo wax ka soo laayeen oo meel cadow ay ahaayeene xoola ka soo kaxaysteen oo madiina isaga soo laabteen madiine agteeda meelahaas marka kormeer iyo ku samaynhayeenoo ninkaanu socday la kulmeen waa soo kaxeeyeen wa atat way timid bihii sariyadii isagii bay ula timid thumaamihii ila almadiinati madiinay keentay oo washadathu way xirtay ilaa saariyatin bahladan istiwaanayaashan oo min sawaari masjid masjidka ka mida baa lagu xiray muntadiran tan xaalay tahay mid sugaysa an yaqifa nabiyu inuu dul istaago calayhi salaatu wasalaam alkariima oo suuban binafsihi naftiisa calaa shacni alasiir ninkan la soo qaaftay arrintiisa dee inuu nebigu eego laakiin keeneen istiwaanayaasha tiirarka masjidka mid kamida ku xiran iyo wa an yamura inuu amro fiihi arrinkiisa dhexdiisa biamrihi amarkiisa oo nebigu inuu wax ka yidhaahdo walama kharaja nabiyu markii nebigu uu soo baxay alayh isalaatu wasalaam ila masjidi u soo baxay oo wahama uu maaragtay damcay bidukhuuli inuu soo galo fiihi masjidka ra'aa wuxuu arkay thumaamihii buu arkay marbuutan xaaluu yahay mid xirxiran oo fi saariyati tiirkaa ku xiran faqaala liasxaabihi asxaabtiisii baa nebigu wuxuu ku yidhi atadruuna man akhadtum war ma garanaysaan qofkaanaad soo qabsateen oo soo qaadateen faqaaluu waxay dhahdeen laa yaa rasuul allah faqaala wuxuu yidhi haada kani thumaamatu bnu uthaalin alxanafiyi weye waa ninkii dhammaayo thumaama ahaye fa axsinuu wanaajiya asaarahu yani xabsigiisa iyo qafaalashadiisa wanaajiya mucaamaladiisa maarata hagaajiya saasuu ka wadaa qofka maarata lasoo qafaasho haddii waa cadowgii qof muslimoo meel isaga waxeeyey baa hadda la dhibaataynhayaa mid cadow haddii lasoo qabto sunnada nebigu waxa weye alayh isalaatu wasalaam mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmo torture aan lagu samayn diinta islaamka tortureku xaaraan weye cadow buu ahaa waa dilaynaa ma jirto dembi kastoo qofka galo lama torture garayn karo diinteenu ma qabto qaanuunka america ma qabo torture xaggee bay ka keenay diinta islaamka marka wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira miskiin iyo yatiim iyo ayaa raashinka la siinaya iyo wa asiiran mid maxbuusoo lasoo qafaashay waa mid cadowey hadda ogow waxaa la yidhi beder markii dad badan laga qabtay 70 laga qabtay gaaladii waa nebigu yidhi si fiican loo dhaqmo markaas waxay raashinka fiicanna ayagay siinayeen saxaabadu midka xunna ayaga cunaya uma intaas kadib rajaca waa uu soo laabtay calayhi salaatu wasalaam ilaa ahlihi reerkiisiiba u soo laabtay wa qaala wuxuu yidhi ijmacuu maa kaana cindakum war kulmiya waxa agtiina aad haysaan min طacaamin raashin ah wabcaثuu bixiya bihi asaga ilaa thumaamata raashinka u bixiya thumaama binu athaal raashin waxaad haysaan inta isku dartaan ninkaa ha loo geeyey maxbuuska uma intaas kadib amara wuu amray binaaqatihi hashiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu amray an tuxlaba in la liso oo lahu thumaamo loo liso fi lguduwi subaxdii iyo warrawaaxi galabtii oo an yuqadama loo dhiibo ileyhi xaggiisa labanuhaa caanaheeda marka raashinkana waa la siiyaa caanahaasna waa weliba hashi nebiga hal caano badan
waqad xaqiiqa tama waxaa taam noqday daalika arrinkaas kulluhu dhammaantii qabla an yalqaahu rasuulu salawaatullaahi calayh intaan nebigu la kulminba oo yukalimahu uusan la hadlin halkaasuu nebigu ka arkay ninkan ugu gartay waa loo waxyoonaya markaasuu raashinkaa u diyaariyey waxaasoo dhan aan hadda soo sheegnay uu sameeyey uma intaa kadib ina nabiya sala allahu alيh wasalam aqbala wuu soo qaabilay calaa thumaama yuriidu asagoo doonahaya an yastadrijahu si tartiiba in u geliyo ila islaam islaamka uu ugu yeero oo waqaala wuxuu yidhi maa cindaka ya thumaama war agtaada maxaa ah maxaad haysaa faqaala wuxuu yidhi cindii agtayda waxa ayaa muxamedu khayr baan hayaa buu yidhi fain taqtul haddaad dishid oo idishid taqtul daa damin nin dhiig idinka galay baad dilaysaa wain tuncim haddaad nicmaysid yani oo laska kaydaayana tuncim waxaad ku nicmaynaysaa calaa shaakirin mid ka mahad celin doona wain kunta haddaad tahay turiidu lmaala xoolo nin raba haddaad tahayna fasal weydii tucta waa lagu siinayaa minhu maalka maashita waxaa rabtid haddaad dishidna hadda waa gar oo dad baan idinka laayay haddaad maaragtay cafisidna waana ka mahad celinayaa haddaad xoola iga rabtona wax alla waxaad sheegataa ku siinaya halkaasuu yidhi waaye fatarakahu rasuulullahi salawaatu ullahi wasalaamu calayh yowmeyni laba maalmood buu kaga tegay calaa xaalisiisii yu'taa waxaa loo keenaya lahu thumaamaha biطacaami iyo washaraabi raashin iyo cabitaan baa loo keenaya wayuxmalu waana loo soo xambaaraya ileyhi xaggiisa labanu naaqati hashi caanaheediina waa loo keenaya uma jaa'ahu markaas kadib ayuu u yimid oo faqaala wuxuu yidhi maa cindaka ya thumaama laba maalmood kadib baa nebigu u yimid alayh salatu wasalaam haye bal warran haddana qaala wuxuu yidhi laysa cindii agtayda ma aha ilaa maa qultu laka wixii hore aan kuu iri min qabl maa cindii agtayda ma aha ilaa maa qultu wixii aan ku iri laka adiga min qabl hore aan kuu iri fain tuncim haddii aad nicmaysid tuncim waad nicmaynaysaa calaa shaakirin mid mahad celinhaya wain taqtul haddaad dishidna taqtul waxaad dilaysaa damin dhiig mid u saaxiiba wain kunta turiidu haddii aad doonaysa almaala maalan fasal weydii tucta waa lagu siinaya minhu maalka maashita wixii aad rabtid fatarakahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam uu ka tegey nebigu xataa idaa kaana alyowm ataali ilaa maalintii labaad maalintii dambe oo xigtay laga gaaro jaa'ahu waa u yimid faqaala wuxuu yidhi maa cindaka ya thumaama war haddana maxaad haysaa wey faqaala wuxuu yidhi cindii maa qultu lak wixii aan kuu iri oo hore kuu iri baan hayaa in tuncim calaa shaakir haddaad maaragtay nicmaynaysid oo isii daynaysid calaa shaakirin mid mahad celinhaya ayaad u nicmaynaysaa wain taqtul haddaad dishidna taqtul daa damin mid diig u saaxiiba oo wax idinka dilay wain kunta turiidu haddaad doonaysaa almaalana oo actaytuka waan ku siinaya minhu maalka maa tashaau wixii aad rabtid faltafata rasuulullahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu milicsaday oo eegay ilaa asxaabihi asxaabtiisa waqaala wuxuu yidhi atliquu thumaamata sii daayo yidhi ninkaan fafakuu waxay fureen wihaaqahu wixii ku xirnaayo silsadihii iyo wa atlaquuhu waana sii daayeen khalaas markaasay ku dhammaatay ninkii dhammaayo musiibada ahaa faraha ka qaadi ka leex maxaa la rabay inuu inta qaato islaamo oo markaa la sii daayo ma islaamhayo ma raba inuu islaamo kufrigiisaasi waxaasuu ku jiraa waa tegey غاadara thumaamatu wuxuu ka tegey thumaamo masjida rasuulillahi sala allahu alay wasalam masjidka nabiga waa ka tegey oo madaa wuu socday xataa idaa balaqa markuu gaaray nakhlan meel timir ay ku taallo oo fii xawaashi lmadiina madiina agagaarkeeda qariiban u dhow oo min albaqiic baqiic bay u dhowdahay fiihi waxaa ku sugan meeshaas maaun biyo anaakha wuxuu arumay raaxilatahu gaadiidkiisii cindahu agteeda geel iyo waxaasay raaci jireen meeshii wuu fariisiyey oo watatahara wuu tahaaro qaatay min maa'ihi biyihiibuu meeshii biyaha lahayd biyaheediibuu ku taahir qaatay faaxsana wuxuu wanaajiyey duhuurahu tahaaradiisa uma caada wuu soo laabtay adraajahu shidadkii uu ku yimid wuu ku soo laabtay ila masjidi masjidka wuu usoo laabtay markaa ninkaa cidnama haysata wagta isagaa iska tegey waa baxay meeshaasuu tegey waa isdaahiriyey dharkiisii wixiisii waa isnadiifiyey saa'idkii buu yimid
fama an balaqahu markii uu soo gaaray xataa waqafa uu ka istaago calaa mala'in meel dad badani joogo oo min almuslimiina ka mid ah oo waqaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh wuxuu qiray shahaadadii ilaahay inamaa ilaah kala jirin nebi maxamedna uu rasuulkiisii addoonkiisii yahay uma intaa kadib ittajaha wuxuu u jeestay ilaa rasuulillaahi rasuulka ilahi sal alla alay slam oo qaala wuxuu yidhi yaa maxamed maxamedow wallaahi baan ku dhaartay maa kaana ma ahayn calaa dahri alardi adduunyada dusheeda dhulka korkeeda ma ahayn wejhun weji oo abqadu ka carab badan ilaya xaggayga min wejhika wejigaaga weji aan ka nabcahay ma jirin waqad asbaxa waqad xaqiiqa asbaxa wuxuuna noqday wajhuka wejigaagu axaba mid laga jecel axaba alwujuuhi wajahyadkan loogu jecel yahay kullihaa dhammaantood ilaya xaggayga hadda marka horena adduunka waxaan ugu nabcaabay wejigaaga haddana adduunka wejigaaga ugu jecla oo wallaahi baan ku dhaartay maa kaana ma ahaynin diinun deyn abqada ilaya min diinika diintaada diin aan ka nabcayna ma jirin fa asbaxa wuxuu noqday diinuka diintaadu axaba diini diin midka loogu jecel yahay kullihii dhammaanteed ilaya xaggayga wallaahi baan ku dhaartay maa kaana beledun beledna ma ahayn abqada ilaya mid iga aan ka nabcahay min beledika aan uga carab badanahay oo fa asbaxa wuxuu noqday beleduka beledkaagaan oo madiine ah axaba albilaadi kulliha bilaada oo dhan kuwa loogu jecel yahay ilaya xaggayga uma intaas kadib ardafa wuxuu raacsiiyey qaa'ilan asagoo leh laqad kuntu waxaan ahaa buu yidhi qad xaqiiqa kuntu waxaan ahaa asabtu mid asiibay fii asxaabika asxaabtaada daman dad baan idka laayay buu yidhi fama aladii tuujibuhu maxaad waajibinaysaa calaya dusheeda maxaan ka samayn doonaa raggii saxaabadan laayay faqaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi laa tathriiba wax dhibaataa ma leh calayka korkaaga yaa thumaama faina alislaama dheh islaamku yajubu maa qadbahu wixii ka horreeyey asagaa baabi'iya oo goynaya wax alla wax dembi ah oo qofka gaalkahay galo markuu soo islaamo waa laga cafinaya wabasharahu wuxuuna ugu bishaareeyey bilkhayr alladii kii oo katabahu llahu ilaahay uu u qoray lahu asaga biislaamih islaamnimadan maaragtay uu ilaahay ugu qoray fambasatat waxaa faraxday asaariiru thumaama asaariirtiisii yacnii wejigiisii iyo asagii o dhan baa waxaa ka dhex muuqday farax ninkan marka muxuu ku soo islaamay in nebiga wax laga barto soo maha alayh isalatu wasalaam ya ninkii cadowga ahaa oo saxaabada laayey oo rabi nebigu inuu dilo oo musiibada ahaa markii uu gacanta soo galay ma waxaa la yidhi lama torjar garayn lama dilin lama dhibaatayn mucaamalo wanaagsan baa loola dhaqmay nebiguna muxuu ka bilaabay mucaamalo fiican kula dhaqmo raashinka oo weliba iska yar oo madiina maaragtay raashin badan markaa ma oli kii ugu fiicnaa hala siiyaa leeyahy nebiga weliba dhibaatada kaloo jirta mataqaanaa oo dee ay meelaha kale ku sheegayaan ninkan raashinku wuxuu cunahayaa wax 7 qof waxay cuntoo kale wax kuma filna marka maalintii hore marka raashinku dadku waa ka dambeeyey bes soo gelinkii hore ma islaamin galabtii baa la raashin loo geeyay wax yar buu inta ka taabtay wuu iska dhigay markaas saxaabada waxay yaa rasuul ninkan aan dharjin weynaa awa hadda wax yar buu codaya marka xadiid kale jiro nabigu wuxuu yiri mataqaana alayhi salaatu wasalaam qofka gaalka ahay 7 caloolood buu wax ku cunaa qofka muslimka ahna waxa way hal calool buu ku cunaya marka hore gaal buu hadartaan iimaan buu yahay ninkii marka sidaa loola tacaamulay oo wanaaggaas uu arkay dadkii cadowga uu ahaa raadinayay saasaa islaamisay hadda haddii xoog ku islaam la yidhahdo ma islaamin wixiina waa ku farxay inaan dembigii hore loo haysan inuu khayr leeyahay muxuu yidhi marka waqaalo wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay la usiibanna waan asiibahaya min almushrikiina mushrikiinta gaalada adcaafa maa asabtu laba jibbaar wixii aan ka asiibay oo min asxaabika asxaabtaada wixii gaalada waxaa muslimka ku dhigahayay waa laba jibbaarhayaa oo dhib iyo dhibaato geysanaya wala adcanna nafsii naftaydana waxaan
ku dejinayaa buu yidhi iyo wasayfii aniga seeftayda iyo waman macii cidda maaragtay aan u taliyo macayga fii nusratika adiga u gargaaristaada iyo wa nusrati diinika diintaada u gargaarideeda nin caadiya maaha nin dhanoo dowlada oo meel haysta uma qaala wuxuu yidhi intaa kadib yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo ina khaylaka akhadatnii fardahaagii baa isoo qabtay buu yidhi wa ana aniguna markaas uriidu aan doonahaya alcumrata cumraan u socdo yidhi famaada taraa an afcal maxaad kula tahay inaan sameeyo nin soo cumraysanhayaan ahaaye arrintaa maxaan ka samaynaya faqaala calayhi salaatu wasalaam nebiga wuxuu ku yidhi imdi tag liadaa'i cumratika cumradaada inaad gudatid walaakin calaa shariicati illahi calaa shircati illahi sharciga ilaahay iyo rasuulihi rasuulkiisa aad ku gudanaysaa bal tii hore ma aha wixii hore oo asnaamta wax loo qalahayey qaabdaradii hore maaha wacallamahu wuxuuna baray nebigu calayhi salaatu wasalaam thumaama maabuu bada oo yaquumu uu ku qumahayo bihi asaga oo min almanaasiki manaasigta cumrada iyo yani waajibaadka cumrada iyo waa uu baray nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha ayaan buu wax la joogay oo sharcigaa la baray oo salaadaa la baray oo diintiibaa la baray oo qur-aankaa la baray kadibna socuu yidhi oo soo cumrayso madaa thumaamatu waa uu tegey ilaa gaayatihi ujeeddadiisii buu aaday xataa intii idaa balaqa uu ka gaaro batna makkata maka markii uu ka gaaro waqafa wuu istaagay makuu yimid meeshii kacbadu yimid yujaljilu asagoo gilgilahaya bisawtihi sawtkiisa alcaali ee koreeya qaa'ilan xaaluu leeyahay labayk allaahumma labayk talbiyadii waa islaamka labayka ku ajiiba allahuma labayk waa ku ajiiba labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa shariika laka waa talbiyadii nebiga alayh salatu wasalaam midaan hadda ma aha midii gaalada moogtahay tan macnaheedu waxa weeye waa ku ajiibay allahayow waa ku ajiibay labayka waa ku ajiibo laa shariika laka wax kuu shariiga ma lihid labayka waa ku ajiibay ina alxamda xamdi iyo walnicmata iyo nicmo ayaa laka kuu sugnaaday iyo walmulk laa shariika laka wax kula shariig yeelana ma jiraan oo kula wadaaga ayagu marka talbiyadooda saas ma ahayn ayagu waxay dhihi jireen labayk allaahuma labayk labayka laa shariika ilaa shariikun laka mid wax kula wadaagaa jiray dhihi jireen oo ilaahnimada kula qaybsanayo isagana lagula caabudahayo sanamyadana saasay wax akhrin jireen ayagu waa kufri wey fakaana wuxuu ahaa thumaamata wuxuu ahaa awala muslimin muslimkii ugu horreeyey calaa dahri alardi adduunyada dusheeda oo dakhala makata maka soo gala mulabiyan xaalu yahay mid talbiyeysanaya awal mara weli ogow hadde ma jirto meeshan lama soo geli karo weli dhulkan gaaladiiba haysata maka fatxu maka ma dhicin marka inta adoo labayk allaahuma dhahso ma imaan kartid ninkii ugu horreeyey arrinkaas marka muxuu yihi arrinka ma yeelhayaan kufaaru maka ma yeelhayaan samicat quraysh baa maqashay sawta talbiyati talbiyadii codkeedii bay maqashay fahabbat sidii wax hurdo ka soo kacay bay noqotay muqdibatan xaal ay tahay maarata mid caraysan madcuuratan oo cabsanaysa wastallat isuyuufu seefihii ayaa galka laga bixiyey min aqmaadiha galkeedii baa laga bixiyey wastallat waa la soo saaray asuyuufa suyuufshii oo waa la siibey min aqmaadiha galkeedii baa laga bixiyey waatajahat waxayna u jahaysateen xawa sawti sawtkii xaggiisii litabtisha si ay u qabto bihaada aladii midkan iqtaxama soo galay calayhaa dusheeda cariinaha qaxaabtoodii midka cariinkaa waxaa carabiga lagu yidhaahdaa meesha dugaagu ku xaroodo ama qaxaab duwa ha ahaato ama mid liba ha ahaato ama abeeso weyn godkeed ha ahaato meeshaad meel la gala ma taha horta haddiise la galo nabad ma looga soo laabanaya wuxuu ka wada khatarta ay leedahu sheegaya de mogta ninkan waxa uu samaynaya iyo meesha uu yimid iyo intaasoo gaal oo carada ka taliso oo caraysan iyo walamaa aqbala markii uu soo qaabilay alqowmu qowmkii calaa thumaamata thumaama markii ay soo qaabileen rafaca sawtahu bitalbiya rafaca wuu kor qaaday sawtahu sawtkiisa bitalbiyati talbiyadii buu kor ugu sii qaaday wahuwa asaguna yanduru fiirinaya ilayhim xaggooda bikibriyaa'in yani sidii nin madaxtaag ku jira weeyo maaha qof cabsanaya
fahama fatan mid baa wuxuu damcay inuu dilo oo min fityaani quraysh an yurdiyahu inuu halaago inuu dilo damcay mid bisahmin gaban uu ku dilo faakhaduu way qabteen calaa yadayhi gacmihiisa qabteen oo waqaaluu waxay yidhahdeen weydxak barbalaaya kugu dhacday ataclamu man hada war ma taqaanaa qofkaani wuxuu yahay inahu asagu humaamatu bnu uthaal weeye meliku lyamaama waa boqorkii reer yamaama wallahi baan ku dhaaranay wallahi waan ku dhaartay in asabtumuuhu haddii aad asibtaan bisuu'in xumaan qataca wuxuu goynayaa qowmuhu qoomkiisu cannaa annaga waxay naga goynayaan almiirata raashinka wa amaatuunaa waynana dilayaan oo juucan gaajay noo dilhayaan meeshaan ay ka timaado qamadiga iyo howluhu waa dhulkaas yamaamaday ka baxdaa halkaasaa maka uga timaadaa haddii laga gooyo marka ka war kuwaan beera ma leh quraysh makay iska joogaan meeshu beerana male webiyaal male waxba male biyana zamzamka u ah laakiin ganacsato weeye ganacsato waaweyn baa joogto oo lacag bay leeyihiin wax walba waa loo keenaa ducadii nebi ibraahim meesha waa ku dhacday wax walba haddaad lacag haysateed dartaanba hadda waxba maxay beeraan waxaan khudaar iyo waxaan la keenin ya warzuq ahlow min athamaraati uu yidhi ilaahay nebi ibraahim ilaahay ka baryey waa loo aqbalay oo meesha horta khayr kama dhammaado laakiin wax ka soo baxa male marka waxay yidhahdeen war wuxuu raashinku naga goynayaa ninkaan u dilnina haddii asaga la taabto qoomkiisaa goynaya waaya uma intaas kadib aqbala alqowm qoomkii baa soo qaabila calaa humaamata bay soo qaabileen bacda an acaadu suyuufa markii ay ku celiyeen seefihii ilaa aqmaadiha galkooda wa qaaluu waxay yidhaheen maa bika yaa humaama war adiga maxaa kugu dhacay humaama waa nin la yaqaanaa asabowta ma gaalowday oo wataragtam waxaad ka tagtay diinaka diintaada iyo diina aabaa'ika aabbayaasha diintoodii wixii shirkigii iyo wixii ayuu diinka ay u yaqaaneen oo ay ku dheganaayeen ma ka baxday baa layidhi see wax u jiraan faqaala wuxuu yidhi maa sabowtu maana gaaloobin walaakinii anigu ittabactu waxaan raacay khayra diinin diin midda ugu khayr badan ittabactu waxaan raacay diina muxamedin nebi muxamed diintiisaan raacay uma intaas kadib ardafa wuxuu raaciyey yaquulu xaaluu leeyahay uqsimu birabbi hada albeyt waxaan ku dhaaranayaa rabbiga beytkan iska leh inahu laa yasilu inuusan soo gaarin ilaykum xaggiina bacda cawdatii haddii aan markaan laabto kadib ila alyamaamati aan ku laabto xabbatun xabad oo min qamcihaa qamadigeeda ow shay-un shay oo min khayraatiha khayraadkeeda ka mida xataa tattabicuu inta aad ka raacdaan muxamedan nebi muxamed can aakhirikum kiina ugu dambeeya u raaco inta gaalatiin wallaahi baan mir dambe idin imaanin waxba kamay soo qaadin faraha ka qaadin laakiin hadday dilaan iyo haddaysan dilinba waxba u imaan mahayaan ictamara humaamatu humaamatu bnu athaal waa uu cumraysay calaa mar'a min quraysh meel quraysh u jeedo dhuudhuumasho maaha kamaa amarahu rasuulu sidii nebiga uu amray salawaatullaahi calayhi an yactamira inuu u cumrayso ayuu u cumraystay sidii sharciga waafaqsan wadabaxa wuuna gowracay taqaruban lilaahi ilahay asoo ugu dhowaanhaya laa lilansaabi sanamyada iyo waxaa ma aha wahanada iyo wal asnaami sanamyada ansaabtu waxa weye waxay ilaahay keyrkood oo la caabudo waxay rabaan ba ha ahaadeen asnaamtuna waxa weeye sanam la qoray oo indho iyo dhego iyo wax loo sameeyey wamadaa waana uu tegey ilaa bilaadihi balaadiisi dhulkiisiibuu aaday fa amara wuxuu amray qowmahu qowmkiisa an yaxbisuu in ay xabisaan oo ka celiyaan almiirata raashinka can quraysh sidii uu ballan qaada waaba ku dhaartay ma ogtahay fasadacuu biamrihi amarkiisii bay dilaaciyeeno oo wastajaabuu waa ay ajiibeen lahu asagii yani warkiisii waa qaateen qoomkiisii waxabasuu waxay xabiseen khayraatihim wax alla wixii khayraad ahaa can ahli makkata reer maka ayaa laga xabisay oo laga joojiyey cunaqabatayn caadiya akhada alxisaar
cunaqabatayntii baa qabatay alladii kaasoo faradahu uu ku soo rogay thumaamatu thumaama calaa qurayshin uu ku soo rogay yashtaddu inuu daraanahayo shay-an fa shay-an tartiib tartiib fairtafacat waxaa kor noqotay alascaaru ascaartii oo fashaa waxaa faafay aljuucu gaajadii fi nnaasi dadkiibay ku faaftay washtadda calayhim korkoodiina waxaa ku darnaaday alkarbu kurbadii xataa khaafuu intay ka cabsadaan calaa anfusihim naftooda iyo wa abnaahim caruurtoodii min an yahlakuu inay halaagaan juucan gaajo darteed. waxaad sheegin meeshii ugu muhiimsaneed wax uga imaan jireen waxba ka imaan mahayaan. cinda dalika katabuu ilaa rasuuli illahi sala allahu alay wasalam, nebigii ay dhahayeen hala dilo la dagaalamayeen baadani ka geen weyde, marka nebigay u qoreen oo fariin u direen, yaquuluuna waxay leeyihiin ina cahdanaa bik, waxaanu kugu ognahay annaka adigu tasilu inaad xiriirinaysid alraxima qaraabada oo wataxudu aad boorinaysid calaa dalika arrinkaas, saasaan kugu naqaanay baa laleeyahay oo cahdigii yani saasaa noogu kaa dambeysay adigoo qaraabadana xiriiriya, qaraabada hala xiriiriya yidhaahda. wahaa anta adiguna waa ku kanaa hadda qad qadacta waxaad goysay arxaamanaa qaraabanimadii naga dhexaysay waa goysay oo faqatalta waa dishay alaabaa'a aabbayaashii bisayfi sayf baad ku dishay beder weeye, wa amadta alabnaa'a caruurtiina waxaad ku baabi'isay biljuuci gaajo, waxba reebi maysid aawey maaragtay silaturaximkii saasay u hadlaya. wa ina thumaamata bnu athaal ninka la yidhaahdana qad qataca wuxuu gooyey cannaa annaga xaggeena miiratana raashinkeygii wa adara binaa waanana dhibay, fain ra'ayta haddii ay kula tahay aad aragtid an taktuba inaad u qortid ileyhi xaggiisa an yabcatha inuu noo soo diray ilayna xaggeena bimaa naxtaaju waxaan u baahanay ileyhi fafcal arrinkaa yeel. haddii ahlnimo iyo qaraabo jirto. fakataba calayhi salaatu wasalaam ilaa thumaamata ayuu nebigu u qoray bian yuطliqa inuu sii daayo lahum ayaga miiratahum raashinkooda, faaطlaqaha wuu sii daaya. horayba rasuulka warkiisa waa ka yaala, waa u fasaxa. si kastoo loo dagaalo, si kastoo balaayo u jirto, dee marna moogtahay nebiga calayhi salaatu wasalaam tacaaliimtiisu in gobonnimada laga taga maahayn. dagaal kasta oo jira, xubaan kastoo ayagu sameeyaan lagu dayn may. nin shiikhoo maraykan ah wuxuu yidhi gaalada saanay nagu samaynayaan, saanay nagu samaynayaan, sidoo kale u galnaa horta annagu diin baan leenahay ayagu diin male. ya ayaga marka noo amiya maxaa la dhahaa role model iyo wixii lagu daynahay maya. haddii gaalka carruurtaada u laaya aduma carruurtiisaa laynaysaa diinta islaamka kuma ogola. ya waxaa la rabaa marka adiga inay diinta sharciga ku qabato, sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam ku celiso iyo dhaqanka. marka abaar baa ku dhacaysa, maxaa la dhahaa marka abaar baa ku dhacay, madiina kama dhicin, wax la cunaa la waayo. dagaalkiina waa ka dhexeeya muslimka iyo gaalada weli. ciiddaasuu u diray nebigu calayhi salatu wasalaam. markaasu wuxuu yidhi kuwa masaakiinta hala siiyo, ilaa ay abu sufyaan ay yidhaahdaan dadka masaakiintu naga kaxaysanhaya waa naga islaamhayaan, waa nalka joojiyo baasha. hadda markii laga cunuqabateyn ku sameeyey thumaamatu bnu athaalna nebigaa u fasaxay. dhalla thumaamatu bnu athaal wuxuu ahaaday mamtadat bihi alxayaatu intii uu noolaa wafiyan mid oofinhaya lidiinihi diintiisa, xaafidan dhowrahaya licahdi nebiyihi nebigiisa ballantii uu la galay. falama iltaxaqa arasuulu sala allahu alayhi salaatu wasalaam nebigu markii uu haleelay birafiiqi alaclaa rafiiqii sareeyey, yani ilaahay xaggiisa markii uu aaday oo uu wafaaday, oo watafiqa alcarabu carabi ay guda gashay yakhrujuuna inay ka baxayaan min diinillaahi ilaahay diintiisii zuraafaatin jamaaco ay uga baxayaan, iyo wawixdaanan mid ay uga baxayaan. oo waqaama uu istaagay musaylamatulkadaab fii bani xaniifata, waa qabiilka usaama ka dhashay, yadcuuhum inuu ugu yeerhayo ila aliimaani bihi asaga inay raacaan. waqafa wuu istaagay thumaamatu fii wajhi wejigiisuu istaagay oo waqaala liqowmihi wuxuu ku yidhi yaa bani xaniifa, waraa bani xaniifa iyaakum wahada alamr, war waxaan amarkaa baan idkaga digahaya, almudlim ee mugdiga
alladii kaasoo laa nuura fiihi wax nuura uu leeyahay ninkan beenlowga naqaano nebi maahane ka jooga ha raacinina inahu asagu wallaahi baan ku dhaartee la shaqaa'un weye shaqi weye oo katabahu llah yani mid dhur darsaday oo ahlunaara weye katabahu llahu ilaahay uu u qoray caza wajalla calaa man akhada wixii qaata bihi asaga oo minkum adinkan ka mid a inahu la shaqaa arrinkan wallaahi baan ku dhaartay la shaqaa'un shaqaawo weye oo katabahu llahu ilaahay u qoray caza wajalla calaa man buu u qoray oo akhada qaata bihi asaga arrinkan oo minkum adinkan ka mid a yani wixii musanatu kadaab raaca shaqi bay noqonayaan wa balaa'un balaayo weeyo calaa man lam ya'khud bihi qofkii aan aqaanina balaayo ku yahay balaayadu waxaa laga wadaa waa imtixaan wey waa la is imtixaanaya qabiilkaagii oo dhan waxay raaceen haddaad ka hartid inaad ka hartid latublawunna waa laydin imtixaanaya waa laydin balaayeynaya ashadul balaa'i yani macnaha xadiisku wuxuu ahaa balaada waxaa ugu daran ambiyada uma alamthal faalamthal yani qofba qofku kaga xigo ayaa ka balaayo badan balaayadaas waxaa laga wadaa imtixaanka dad maaragtay faqri maxaa la dhahaa cudur dhibaato marka qofkii ku sabrana hadde waa ku guuleystay qofkii ku sabri waayana hadde waa iskala gooyo marka saasuu dadkii ku yidhi oo wuxuu isku dayay inuu ka reebo maaragtay musaylamatu lkadaab uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa bani xaniifa reer bani xaniifo inahu shani laa yajtamicu ma kulmahayaan nebiyaani laba nebi fii waqtin waaxid laba nebi oo isku mar joogtaa ma dhacayso waina muxamadan nebi maxamed rasuulullahi rasuulkiisii weeye laa nebiya bacdahu nebi ka dambeeya ma jirto walaa nebiya nebina yushraku macahu lamana shrig yeelhayo oo lama wadaajinhayo uma intaas kadib qara'a wuxuu akhriyay calayhim dushooda xaamiim tanziilu kitaabi min allahi alcaziizi alcaliim غافر الذنب وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير آيadaasna wuu akhriyay xaamiim waa iska mutashaabih waada iyadu lama macneeyo allahu aclamu bimuraadihi tafaasiirto dhan leeyihin tanziilulkitaab kitaabkan de ilaahay soo dejintiisu min allahi alcaziiz alcaliimi bay ka timi غaafiri dembi dembiyada dhaafaya oo qaabilo toobay toobadana wala shadiid alciqaabi ciqaabtiisuna ay aad u daran tahay ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير ilaahay marka dee asagu nicmooyinka iyo leho ilaahay ma asaga kale tajirin asagana loo dhammaanahay xaggiisa uma qaala intaas kadib wuxuu yidhi ayna kalaamullahi u fiirso hadalkan muxuu u akhriyay ujeedu ka leeyahy hadalkaa quruxda badan qaabka qur'aanka ah oo cajiibka ah ayna kalaamullahi kalaamka ilaahay bal ka warramuu yidhi xaggee buu ka joogaa haadaa kan oo hadda aan akhriyey min qowli musaylamata musaylamada asaguna qur'aan durwaa buu la yimi qur'aan kaluu samaystay oo dadka ku waxeeyo balaayaha oo sajac ah marka bal labada qur'aan isku fiiriyuu leeyahy weliba kaas qur'aanku ma u sheegine kalaamkan ilaahay qowli musaylama muxuu yahay qowl musaylama waa kan yaa difdacu naqii rahay iska dhawaaq maa tunaqiina waxaad la dhadhawaaqaysid oo waaqda ku haysid la sharaaba tamnaciina cabitaanka ma aad mancinaysid oo ma diidaysid biyaha aad ku dhex jirto oo ka dhex qaylinaysid in la cabo ma diidaysid walal maaa tukadiriina biyihiina ma wasqaynaysid waxaas wuxuu leeyahy waa qur'aan laygu soo dejiyey ya waxaas iyo waxa lamid ah oo wada balaaye ah qur'aan durwaagu waa badnaayo mid baa waagii nebiga alayh salatu salaam maka joogay baa intaasoo ayadood baa soo degatay haddii qur'aankan oo kale faatuu bisuuratin mitli faatuu bicashri suwarin mitli 10 suuradood lamida keena markii dambe waxaa soo degatay faatuu bisuuratin mitli hal suurada lamida keena markaasaa qola inta shirtay baa layidhi suuradda qur'aanka ugu yar noo fiiriya ina acطaynaka alkawthara isku daynaa leeyahy taasoo kale taasaa isku dayna markaasaa mid baa anaa diin keenay wuxuu keenay inaa acطaynaaka waxaan ku siinay alqawqac
هو الغراب الأبلق wax noocaasuu keenay tuka maarata qoortiisu caddahay qawqacba wax aduu balaaya meesha shirki markay leeyihin intay ku qosleen baa waxaas la yimaada hor naga tag qur-aanka maarata musaylamo kale wax jira maaha uma intaas kadib inxaaza wuxuu ku biiray biman ruux oo baqiya ku baaqi noqday cala alislaam islaamka waa thumaama oo min qowmihi qowmkiisa ka mid a wamadaa wuuna socday yuqaatilu xaaluu yahay mid la dagaalamaya almurtadiina kuwa murtadada oo diinka ka baxay jihaadan jihaad oo fii sabiilillaahi ilaahay darti ah iyo waiclaa'an koryeelid oo likelimatihi kelimadiisa maarata kor loo qaadayo fi lardi ardada saasuu asuu ku dambeeyey thumaamatu bnu athal yani dadkii ridoobay ma gelin qabiilkiisi o dhan waa ridoobeen qaarkii aan ridoobin iyo asaga iyo waxay ka qayb galeen jihaadkii lagula dagaalhayay dadkii caamuridda lagu waxaynayay jaza allahu maaragta ilaahay ha ka abaalmariyo thumaamatu bnu athaal can ilislaami islaamka iyo walmuslimiina khayran wa akramahu allah ku karaameeyo biljannati janno allah ku karaameeyo allatii taasoo wucida loo ballan qaaday almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsada wallahu subxaanahu watacaala aclam sala allahu calaa sayidina